madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qasbay inuu ka soo baxo villa Soomaaliya isagoo ka qayb galaya shirka ka dhacaya xeerada xalane ee beesha caalamku ay dhexdhexaadinayso wuxuuna muddo hal saac ka badan halkaasi ku sugayay mucaaradka madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qasbay inuu ka soo baxo villa Soomaaliya isagoo oo ka qayb galaya shirka ka dhacaya xeerada xalane kaasi oo beesha caalamku ay ku dhexdhexaadinayso madaxda haatan talada haysa ee uu hogaaminayo madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale mucaaradka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa awoodiisii hoos loo dhigay kadib markii ay beesha caalamku si toos ah ugu qasabtay inuu ka soo baxo villada mucaaradkana uu kula yeesho xalana shir kaas oo ay marqaati ka tahay beesha caalamku madaxda mucaaradku waxa ay iska soo xuleen shirkaana ku matalaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Cabdiraxmaan Caynte oo ah gudoomiyaha xisbiga Xaqsoor iyo midowga haybad qaran kaasi oo dhanka farsamada u qaabilsan mucaaradku inta aysan shirkan ka soo qayb galin waxa ay kulamo gooni ah ku yeesheen hotelada airport oo uu degan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani halkaasi waxa ay ku garfeeyeen qodobada ay la tagayaan shirkani isla markaasina waxa ay isku afgarteen laba qodob oo ku saabsan doorashada labadan qodob ayay mucaaradku hor dhigayaan madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale beesha caalamka oo arrinkaasi iyadu marqaati ka waa ceeb iyo fadeexo 10 sano kadib in Soomaaliya markii ugu horeysay oo muddaxileedkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud beesha caalamku ay dhexdhexaadiso madaxda talada haysa iyo sidoo kale mucaaradka iyo dowlad goboleedyada 2016 ayaana u dambeysay in beesha caalamku sidaan oo kale ay ugu yeerto madaxweyne iyo sidoo kale mucaaradka dalka ay dhexdhexaadiso marqaatina ay ka noqoto kulamadooda Xasan Sheekh Maxamuud ayayna mucaaradku hor dhigeen labadaasi qodob sidoo kale beesha caalamku waxay sheegtay in haddii Xasan Sheekh Maxamuud qodobadan uu ka baxo in ay ku soo rogayso cunaqabatayn siyaasadeed haddaba 2016 wixii ka dambeeyay haddii ay markii ugu horeysay tahay soo tani ceeb iyo fadeexo kuma ahan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu talada hayay xilligii uu muddaxileedkiisu sii dhamaanayay mucaaradka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada waxa uu la hadlayay si toos ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaana is arkayay iyagoo toos uga wada hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka isla markaasina waxa la xasuustaa shirarkii ka dhacayay Dhuusamareeb Garowga iyo Baydhabo taasi oo si toos ah ay ugu wada hadlayeen madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale madaxdii maamul goboleedyada ee dalka qodobada iyo gorfeynta ma jirin beel caalam oo dultaag u ahayd isla markaasina marqaati ka ahayd arrinkaasi haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ma ku dhacay dabinkii uu uga digay madaxweynaha hore Farmaajo isagoo u sheegay inta uusan bisad siyaasadeed noqon inuu heshiis la gaaro madaxda mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka